Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idiin salaamayaa saaxiibayaal. Halkan waa channelka xogta dalka. Kusoo dhawaada qodobada aan idiin soo gudbinayo waxaa ka mid noqonaya Mareykanka oo faahfaahin ka bixiya duqeyn uu ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Kooxo hubeysan oo afduub iyo weliba dhac ka bilaabay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo weliba saraakiil kaleeto oo gaaray gudaha magaalada Dhuuso-Mareeb ee maamulka Galmudug. Tirada dadka caabuqa COVID-19 u geeriyooday maamulka Somaliland oo korortay. Dowladda Soomaaliya oo daawo iyo weliba agab caafimaad geysay gudaha magaalada Buuhoodle. Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in marnaba aqbali doonin in deeq dowladda Soomaaliya ay soo gaarsiiyaan maamulka Somaliland. Waxaan markale saaxiibayaal isku maqal wanaagsan. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 18 bisha May ee sanadda 2020. intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka xulan iminkana kusoo dhawaada saaxiibayaal warkii oo faahfaahsan. Haddii aynu ku bilaabno saaxiibayaal, Mareykanka waxa ay faahfaahin duqeyn ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya 17 bisha shanaad ee sanadda 2020 duqeyn dhinaca cirka ah ee ka fuliyeen meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Kunya Barrow, isla markaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Weerarkaasi ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen 2 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena ay ku taageereen ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jiray xarakada Al-Shabaab, sida uu sheegay ku-xigeenka madaxa howlgallada ciidamada Mareykanka ee AFRICOM General William Gallo. Sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi qiimeyn ay sameeyeen ee lagu ogaaday inaysan wax ku noqon dad rayid ah yeeshee Al-Shabaab. War ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay ku dhaawacmeen 6 ruux oo markaasi hal qoys ka wada tirsanaa. Mareykanka ayaa sanadkan 2020 waxa uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka ah uu ku fulinayo Soomaaliya, isla markaana uu la beegsanayo xarumaha ay Al-Shabaab iyo weliba Daesh kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland. Waayahay saaxiibayaal, geesta kale haddii aynu eegno kooxo hubeysan oo afduub iyo weliba dhac ka geysanaya gudaha magaalada Muqdisho waxa ay ka bilowdeen Muqdisho. Magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan xaafado ka tirsan degmooyinka Howlwadaag, Warta Nabadda, maalmihii la soo dhaafay dadka ku nool waxa ka soo yeeray cabasho ku aadan inay jiraan kooxo hubeysan oo dadka shacabka ah dhac markaasi u geysanaya oo ka qaadanaya taleefanada gacanta ay ku sitaan. Dad shacab ah oo la soo xiriiray qaar ka mid ah warbaahinada dalka ayaa waxay sheegeen in rag hubeysan oo wata gaadiidka loo yaqaan mooto bajaajta ay habeen iyo weliba maalin dhac u geysanayaan dadka shacabka ee ku nool degmooyinka Warta Nabadda, degmooyinka Yaaqshiid iyo weliba degmada Howlwadaag. Qaar ka mid ah dadka dhaca loo geystay oo aynu la hadalnay waxay sheegeen in ragga dhaca geysanaya oo bastoolado ku hubeysan yihiin ayna ku wadanayaan qaab afduub ah, iyaga oo markaasi sheegaya inay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya lagana shakinin hayeeshee kadib ka qaadanaya wax alaale oo aad markaasi gacanta aad ku hayso. Mid ka mid ah dadka dhaca loo geystay waxa uu sharaxaad ka bixiyay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday meel aan ka fogeyn isgooska Laba Dhagax ee magaalada Muqdisho. Dad badan markaasi laga qaatay moobilka gacanta ay ku isticmaalaan. Muddooyinkii ugu dambeeyay dadka shacabka qudhooda waxay inta badan markaasi ka cabanayeen dadka ku hubeysan diriiska ciidanka booliiska Soomaaliya oo dhac markaasi ka geysanaya gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. Waayahay saaxiibayaal, markan haddii aynu eegno wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada Dhuuso-Mareeb, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo weliba saraakiil kale waxa ay dhawaan ay gaareen gudaha magaalada Dhuuso-Mareeb ee maamulka Galmudug. Saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaa lagu soo waramayaa in markaasi magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka maamulka Galmudug ay markaasi gaareen wafdi saraakiila uu hogaaminayo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage. Wafdiga oo markaasi ka amabaxay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxaa qayb ka ah taliyaha cusub ee dhawaan dowladda Soomaaliya u magacaabay booliiska maamulka Galmudug General Beeshaar Abshir Geedi, weliba taliyaha guutada 15aad ee qaybta 21aad General Mascuud Maxamed Warsame. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa waxa uu markaasi booqday xeryaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isagoo dhiirigelin markaasi u sameeyay ciidamada loo diyaariyay inay fuliyaan
howlgallo dhowaan laga bilaabayo deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada mudug iyo weliba maamulka galmudug. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kusoo dhaweystay gudaha magaalada Dhuusamareeb oo ay ka mid yihiin saraakiisha ugu sareysa ee maamulka galmudug. Waa hagaag saaxiibayaal, marka wararka ku saabsan maamulka Somaliland bal haddii aynu eegno maanta waxay ku beegan tahay 18 May, waana maalintii markaasi ay ka go'day dowladda Soomaaliya. balse caabuqa COVID-19 tirada dadka uu soo ritay maamulka Somaliland waxaa lagu soo waramayaa inay sii kordhayaan. Somaliland waxay shaacisay kiisas hor leh cudurka caabuqa COVID-19 oo laga diiwaan geliyay deegaanada ay weliba qofkii sagaalaad ee cudurkaasi ugu dhintay maamulka Somaliland tan iyo markii uu haleelay caabuqa COVID-19. Guddiga wacyigelinta weliba ka hortagga COVID-19 oo qaabilsan maamulka Somaliland ayaa sheegay in markaasi la baaray 40 ruux oo loogu shakisanaa cudurka COVID-19 balse cudurka laga helay 19 qof oo ka mid ah dadkaasi. Dadka cudurka laga helay ayaa guddiga waxa ay sheegeen inay joogaan 15 ka mid ah magaalada Hargeysa, halka 3 kalena ay kala joogaan magaalooyinka Boorama iyo weliba Oodaweyne, waxaana dadka cudurka laga helay ku jira 1 qof oo u dhashay dalka Bangladesh. ugu dambeyntii guddiga ayaa waxa ay sheegeen in qof qaba cudurka ugu dhintay gudaha magaalada Hargeysa, kaasi oo noqonaysa qofkii sagaalaad ee maamulka Somaliland ugu dhintay caabuqa COVID-19. tirada guud ee dadka laga helay cudurka COVID-19 deegaanada maamulka Somaliland ayaa waxa ay gaartay 120 qof. 9 qof waxaa lagu soo waramayaa inay u dhinteen, halka 8 kalena ay markaasi ka bogsadeen caabuqa safmarka ah COVID-19. caabuqa COVID-19 iminkan waxa uu ku sii faafaya deegaanada maamulka Somaliland. Dowladda Soomaaliya waxa ay hore u diiwaan gelisay tiisas markaasi aad u fara badan oo caabuqa COVID-19 ah. Horey maamulka Somaliland waxa ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay markaasi caabuqa COVID-19 waxyaabaha loogu talagalay ay gaarsiin doonaan gudaha magaalada Hargeysa, balse ay ka biyo diideen oo ay sheegeen in dowladda Soomaaliya marka aysan soo gaarsiin karin waxyaabaha loogu talagalay caabuqa safmarka COVID-19. Wasaaradda Caafimaadka maamulka Somaliland horey waxay u shaacisay in markaasi la fasaxayo dhammaan iskuulada, jaamacadaha iyo weliba dugsiyada ku yaala, balse wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in maanta qaadka inta badan ka soo degi jiray garoonka magaalada Hargeysa la fasaxay, waxaana markaasi ay sheegeen in qaadka markaasi uu fasax yahay, iyadoona maanta lagu soo waramayo in dhammaan shaqaalaha maamulka Somaliland ay fasax yihiin, iyadoo markaasi ay ku beegan tahay 18 May ee sanada 2020, waana maalintii ay maamulka Somaliland aaminsan yihiin inay ka go'een dowladda Soomaaliya. Saaxiib isla wararka maamulka Somaliland haddii aynu eegno, madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in marnaba la aqbali doonin in dowladda Soomaaliya ay deeq soo gaarsiiso gudaha magaalada Hargeysa. Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta jeediyay khudbad gaar ah oo ku saabsan xuska 18 bisha May oo Somaliland u aqoonsan tahay maalintii ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, ayaa ka hadlay wadahadalada Somaliland iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya weliba deeqaha loo marsiiyo dowladda Soomaaliya. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan deeqaha beesha caalamka ay siinayaan Somaliland, balse marnaba aysan aqbalin in loo soo marsiiyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay u arkaan inay tahay cadowga Somaliland, isla markaana diidaan madax banaanidooda, sidoo kalena ka hortagaan in loo aqoonsado aqoonsina markaasi la siiyo. sidoo kale madaxweynaha maamulka Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo hadal qaaday arrimaha la xiriira wadahadalada Somaliland iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay wadahadal diyaar u yihiin, balse marka hore looga baahan yahay inay dowladda federaalka Soomaaliya weliba Somaliland ay aqoonsato inay yihiin laba dal oo walaalo ah. Hadalka madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa ku soo aadaya xilli 3 sano ee la soo dhaafay ee dowladda madaxweyne Farmaajo aan wax hadal ah la gelin maamulka Somaliland, isla markaana hadallo si kala fogaanaya ay warbaahinta inta badan markaasi ay isku marinayaan hawada. waa hagaag saaxiibayaal, ugu dambeyntiina haddii aynu eegno, dowladda Soomaaliya waxa ay daawo iyo weliba agab caafimaad geysay magaalada Buuhoodle. wafdigu hogaaminaya wasiirka kalluumeysiga iyo weliba kheyraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa maanta waxay gaareen magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ka tirsan. wafdiga oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay magaalada Buuhoodle ay gaarsiiyeen dawooyin weliba agab caafimaad oo qaarkood loogu talagalay ka hortagga caabuqa safmarka ah ee COVID-19.
wasiirka kalluumeysiga iyo weliba kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Biidaan ayaa sheegay inay halkaasi u tageen sidii ay ula socon lahaayeen xaaladaha caafimaad ee ka jira magaalada iyo weliba arrimo kale. xubnaha wafdiga ayaa waxaa la filayaa inay kulamo ay markaasi la qaataan maamulka degmada iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool gudaha magaaladaasi oo sanadii ugu dambeeyay arkin wax dowlad ah. guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka waan idiin anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa la socodsiinayay. saaxiibayaal waxaad leeyahay warkaas xigaan oo la kulantii waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe gareysaan aad like dhahdaan si uu idin soo gaaro warbixinadii ugu dambeeyay oo aan idin soo gudbino.